السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودكتور أمين دينك Faculty of Medicine جامعة سمت. waxaa mar kale noo soo gashay alxamdulillahi rabbil caalamiin inaan qabanno imtixaankii intermediate loo yaqaanay ama first professional exam ka loo yaqaanay. imtixaankaas waxaa loogu talagalay in ardada sanadka saddexaad dhameeyay oo u gudbaya sanadka afraad laga qaado, ama si kale haddii loo yiraahdo in laga qaado ardada basiga medicine dhameeyay una gudbaya termka kaleeto oo ah clinicalka. alxamdulilah imtixaankaas wuxuu ka kooban yahay 3 maado 4 maado 5 maado ayuu ka kooban yahay. waxaanu qaadnaa maadooyinka basiga ah, anatomiga, physiologyga, pathologyga, microbiologyga, biochemistryga ayaanu qaadnaa. waxaa noo suurta gashay sidii sanadkii horeeto kaleeto in aan keenno external examinaries inaan keenno si aan u hubino quality-da ardada aan u hubino. runtii jaamac simad waxay ku dadaalaysaa inay soo saarto dad quality leh regardless quality marka laga tago. caafimaadka Soomaaliya maanta wuxuu u baahan yahay inuu helo dhaqaatiir quality leh, ammaano leh, committed ah ayuu u baahan yahay. waxaanan ballan qaadaynaa inaan soo saarno dhaqaatiirtaas quality leh, committed ka ah, ammaanada leh inaan soo saarno. si aan saas u sameynana sida aan hadda aan sheegaba waxaan keenay dhaqaatiir professoro adduunka laga yaqaano oo ayuu imtixaankaas u imtixaamaya as external examiner u imtixaamaya, hubinayana ardadaas quality-dooda hubinaya. qofkii aqoon leh aqoontiisaasna gudbin kara unbaa imtixaankaas ku baasahaya. taas waxay aad iyo aad kor ugu qaadaysaa quality-da kor u qaadaysaa. waana mid aan waqtiga faraha badan iyo juhdiga faraha badan aan ugu bixinay inaan helno inaan soo saarno dhaqaatiir quality leh si aan wax uga bedelno caafimaadka Soomaaliya oo runtii u baahan dad quality leh ee aan u baahnayn dad aad u fara badan. ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala. waxaa noo suurta gashay inaan keenno nimankaas professorada ah oo ka yimid jaamacadda HUKM ama University ka Bangazan Malaysia ka yimid, isbitaalka loo yaqaan HUKM ka yimid. ayagaan imtixaankaas qaadaya, ayagaan runtii hubinaya quality-da. taas waxay ka hor qaadi doontaa in aan gaarno aymkeenii aan ku rabnay inaanu Soomaaliya ku darno aqoonta Soomaaliya ama caafimaadka Soomaaliya quality-da inaan kor u qaadno, laakiin aanan dad fara badan oo quality lahayn aanan soo saaran, laakiin dad ammaano leh quality aan soo saarno. wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.